wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa maanta ka jawaabtay warbixin la sheegay in dhawaan ay soo saareen ururka kubadda cagta ee CONIF ay ku boobeen wadamada aan la aqoonsan adduunka oo la sheegay inay ku sheegeen inaanay Soomaaliland marti gelin karin koobka wadamada aan la aqoonsan oo la filayay in sanadka soo socda uu ka qabsamo Soomaaliland oo horena ay xukuumadda Soomaaliland u shaacisay marti gelinayso haddaba Samatar Maxamed afayeenka wasaaradda ciyaaraha warbaahinta kula hadlay gudaha wasaaraddaas ayaa waxa uu sheegay in warbixintaasi aan ahayn mid sax ah oo loo soo gudbiyay xukuumadda gaar ahaan wasaaradda ciyaaraha waxaanu meesha ka saaray afayeenku wararka sheegay in Soomaaliland marti gelinay koobkaasi sanadka soo socda ee 2020ka shuruudaha ugu badan ay ku xirisay waxay ahayd in ay soo eegaan kow caafimaadka maadaama intaas oo wadan oo aan la aqoonsan ka qayb galayaan amniga dhakhtarada iyo hoteelada waxa kale soo raaca tayada garoomada lagu ciyaarayo in laga helo qolalkii labiska in qolalkii ciyaartoyda ay ku nasanayeen iyo goobihii kale ee u dhisnaa sida standardka caalamka intaas waxay shuruudihii wasaaradda lagu xidhay iyo Soomaaliland iyadoo wasaaraddu ay ka duulayso xukuumadda qorshaha uga yaala ciyaaraha iyo horumarkeeda iyo in Soomaaliland calankeedu kor loo qaado waxay ka hawlgashay in ay arrimahaasi buuxiso waxa uu yaraan dalka yimid laba wafdi oo ka socda CONIF kuwaasi oo la soo mariyay gobolada Maroodijeex Saaxil Togdheer iyo Awdal oo runtii iyo gobolka Gabiley oo runtii intaasba ay ka diyaarsan yihiin garoomadii oo roogii loo goglay taasi oo qorsho ahaa in goboladaasna lagu ciyaaro waxyaalaha kale ee ka mid ah CONIF ee ay sheegtay tartankan waxa ka mid ahaa in shirkado qaar ay wataan ay yihiin shirkado la doonaya inay xaysiiyaan khamriga maadaama ay nahay wadan islaam ah Soomaaliland kama tahay wadamada islaamka ah ka xukuumad ahaanna aynu dastuurkeena iyo qawaaniinteena dhigayso inaan ku dhaqanno sharciyada diinta islaamka taasi waxay noqotay wax aad u adag wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu waxay u celisay qoraal ah in arrinkaasi aanay suurtagal noqonayn waxay CONIF ay si official ahayn ugu dhawaaqday page-keeda Facebook ay ku leedahay in ay si farsamo ahaana Soomaaliland lagu qabanay tartankii CONIF 2020 bisha June ilaa hadda waraaqii officialka ay wasaaradda isweydaarsanayeen emailskii wali wax fariin ah oo soo gaaray wasaaradda in ay CONIF ka noqotay in Soomaaliland lagu qabanayo ilaa hadda lama hayo ka wasaaradda ninko wali aan ku qaban ama la daala dhacay inaad qabataa tartankii gobolada say u suurtagal noqonaysaa inaad koobkaasi marti gelisaan midda kale ma waxa leedahay si rasmi ah ugu dhawaaqin Soomaaliland aan lagu qabanayn CONIF ay tartankani horta runtii waan sheego waxaan yidhi waxay soo geliyeen page-kooda Facebook wasaaradda ciyaarahana xiriir bay wada lahaayeen ilaa hadda si official wasaaradda ciyaaraha farintaas uguma soo dirin iyagu arrin kale ciyaaraha gobolada wasaaradda ciyaaruhu way u xil saaran tahay inay ciyaaraha qabato arrinkan ciyaaraha goboladana waxa laga horeysiinayaa marka Soomaaliland dhan laga qabto garoomadeedii oo maanta gogolan in la hirgeliyo naadiyada heerka labaad heerka saddexaad heerkooda loo qabto horyaalo in loo qabto kulamadii ay gobolada la isku imanay horyaaladu ay caasimadda imanayeen kale in ay sameeyaan naadiyada home iyo away ciyaaraha goboladu waxa weeyaan ifanka ugu weyn ee sportska sidoo kale afayeenka uu muqbaahiyaha caalamiga badda Aston 4 TV wax ka weydiiyay xukuumadda gaar ahaan wasaaradda ciyaaraha iyo xisbiyada mucaaradka oo kala aragti duwan iyo dhaliilo ay xukuumadda u soo jeedeen xisbiyadaasi ayaa waxa uu ku jawaabay ninka wasaar ahaan wali waxaad aaminsantiin Soomaaliland lagu qaban karo koobkaasi xisbiyada mucaaradkuna arrinta aad bay uga soo horjeedaan waxayna sheegeen in Soomaaliland waqti xaadirka aanay marti gelin karin sidee isku waafaqayaan labada aragtiyood waxay isku waafaqayaan in Soomaaliland wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ayaa uga mas'uula wixii ciyaaraha xisbiga wadani iyo xisbiyada kalena xaq bay u leeyihiin waana jiritaankooda inay ka faa'iideystaan wixii dhaliil ah waana shaqada ay maanta u taagan yihiin inay chance ka faa'iideystaan laakiin waa xisbi qaran aragtidiisa la qaato wax xisbi qaran oo muhiim ah in aragtidiisa la qaato waa marka la qaadanayo markuu sax yahay marka aan la qaadanayo markuu khaldan yahay marka iminka su'aasha hadaan soo noqdo Soomaaliland waxay diyaar u ahayd una tahay iminka in CONIF ay u diyaar garoobaysay diyaarna ugu jirtay in 2020 la qabto وخضر إسماعيل محمد خضر دنبال يا عبد الرحمن قعيرو ورك مقبهية عالمي بدأ أصلاً 4 TV حرقيسة